السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرينتان waxaan rabaa inaan u diro waalidiinta maadaama waalidiintu badankooda ay teenage iyo caruur dhalinyaro ay korinayaan arin ayaa maanta igu dhalisay arintan inaan idin la wadaago. Arintaas waxay ahayd waxaa la tusay video gabadh yar oo aan isleeyahay hadda 20 gashay ama 21 laakiin xijaaban oo khamaar madaxa ku qabto laakiin waxa ay ka hadlaysay يعني أدي معركتي الدين تي أنشح يا في ترضى أدي معركتي نسلا حتى قالوا كم دي رذان قابك وهالليسي تحسن وحيس ليه هو صوته كنتي لأن رذا إن السوشيال ميديا مركي أدو استعمالان وأدي أدو طلع تجان حشودكي يو دين تودي يو في ترضى ذي ولم بس بدليس مركز درادي دو حرر سؤاله من دوريها يدين دوريها كبادرا waayo badan waxaa laga hadli jiray in kiniiniyada iyo overdose dhalinyarada u dhintaan iyo in arintaas laga hortago waana wax aad iyo aad muhiim ah in laga hortago wax kastoo dhalinyarada caafimaad ahaan jirkooda dhibaato u keenaya laakiin sida si leeg waxaa muhiim ah waalid kasta caruurta oo hayo oo mas'uulka uu ka yahay iyo inta ay guriga u joogaan inuu ku baraarujiyo khatarta ay leedahay internetka baraarujintaasi wax badan ayay taraysaa in caruurta markasta loo tilmaamo loo bidhaamiyo khatarta internetka ay leedahay gacantooda ayaa waxay ku haystaan wax haddii ay si fiican u isticmaalaanna cilmi iyo aqoon ay ka kororsan karaan haddii si khaldan ay u isticmaalaanna adduunkan ay ku khasaarayaan aakharna ay ku khasaarayaan dhibka ugu weyn jira waxaa weeye hadda internetka faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa khaasatan social media waxaa badan dhibaatooyinkiisa badan kow wuxuu kala kulmayaa dad badan oo shubahaad iyo diin darro iyo magaranaysa in diinta laga baxo in magaranaysa xishoodka laga tago in qofku ahwaadiisa iyo shaydaankii naftu waxay jeceshahay raaco dad waxaas dhan faafinaya oo qaabo kala duwan ku faafinaya English ha noqoto Carabi ha noqoto Soomaali ha noqoto ay arkayaan saas daraadeed waalidiintu waxaan rabaa insha Allah taala in gurigeena aad ma aragtay aad isku daydaan aad ku dhaqantaan waxa la yiraahdaa digital detox oo faamilada ma aragtay Mareykanka qaarkood المسلمين تأهين لكن حتى أوك خطرت إنترنت كلية أي استعماله معناه ديجيتال ديتوكس وحوين لأن يرضى لقى أرورية تلفون هذا ديفايس كلقى أروريو فصح كقطان والد كمرك أبيه هو يدنا عروض أي كله الله إنترنت كواحد أي كله كل من وناجي يوم عرفت يحمام با سلوا براروتشي عروضه واحد عنده ذكوها يستان يني واحد خطروه haddii si xun ay u isticmaalaanna adduunkana ma garanaysa ay ku khasaarayaan aakharna ay ku khasaarayaan wax ugu weyn aan walwal gelinayo waxa weeye social media caruurteena waxa ay ka dhaxleen waa diin darro iyo xishood darro weeyaan wixii annagii nagu weynaa agteena ku weynaa agteena qiimo ku lahaa ayaa social media qiimaha ayuu ka saarayaa walwalka ugu weyn taas weeyaan bal caruurta la baraarujiyo maandooriyaha laga baraarujiyo diin dooriyaha oo social media ugu horeeyana TikTok iyo Instagram iyo waxaas dhanna هلا برارجيو أدب ما سنتين إلى عروتين هنو إلى اليو أنا هنا يكون نقطة سالو ونكسن السلام عليكم